waanigii idin soo gudbinaya wixii aad hore iiga barateen su'aasha maanta waxay tahay qofka bini aadamka ahi ma noqon karaa wacal isaga oo meher ku dhashay haa qofku wuu noqon karaa wacal isagoo meher ku dhashay wacal macnaheedu waxa weeye qof aabihii dayacay oo aabba aan korsan oo asagu maaragtay isagoo qof dayacan weeye wacalku waa qof dayacan waa qof qof aan la barbaarin ama la korin ama la tarbiyayn ama la wanaajin weeye wacalku waxa weeyaan wacalku waa dhib badan yahay waa akhlaaq xun yahay waxa weeyaan waa qof dhib badan weeye wacalku marka haa qofku wuu noqon karaa wacal isaga oo ku dhashay meher marka qofka waxaa ka dareemaysaa inuu wacal yahay iyo in kale dhaqankiisaa ka dareemaysaa marka dad badan oo meher ku dhashay oo aabbahood uusan soo korsan oo uusan soo xanaanayn oo uusan soo dhaqaalayn oo la dayacay ilmahaasi waa wacal hadduu rabo markii horeba ha ku dhasho meher ha ku dhasho waa wacal marka wacal kalena waa jiraa oo wacalka aan meherka ku dhalan baa dadku u yaqaanaan wacal marar badan wacalka aan meherka ku dhalan oo aabbihii soo korsaday oo aabbihii soo dhaqaalaystay oo loo soo dadaalay oo laga soo taxadaray wacalka aan meherka ku dhalan oo nolosha fiican leh marar badan wuxuu ka fiican yahay ama ka akhlaaq fiican yahay ama ka xanaano badan yahay wacalka meherka ku dhashay oo aabbihiis uusan soo korsan marka laba wacal baa jirta wacal meher ku dhashay oo aabbihiis dayacay oo aan la tarbiyayn ama aan la layliyin iyo wacal ku dhashay meher la'aan sida wacallada caddaanka oo kale iyo gaalada oo aabbahood soo xanaanaystay marar badan wacalka ku dhashay meher la'aantu marar badan wuxuu ka fiican yahay wacal badan oo meher ku dhashay buu ka fiican yahay marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxbaa igu dhaliyey aan maantadii hore arkay inaan arrintaa ka hadlo waxaa igu keenay xawilaad la dhacay oo maaragtay dahabshiil baa la dhacay oo lacag badan baa laga dhacay marka meeshii anoo jooga baa dad badan baa soo galay dadka badan oo raba inay lacagta diraan meesha way xirnayd marka dhicitaanka waxaa ku kallifay in la dhaco meesha awal dahabshiil waxaa ku dirsan jirtay bangi accounta isticmaali jirtay bangiga lacagta markii galabkii intay qaadaan bay bangi kusoo ridan jireen bangigaas baa lacagtooda u xifdin jiray oo lacagtooda u gudbin jiray oo meeshay rabaan
u gaarsiin jiray. marka waxaa la yidhi sababo badan mid la ii sheegay sababo badan oo jira. sababta ka mid oo la ii sheegay waxa weeyaan waxaa la yidhi waxba waa laga faa'iidi waayey oo bangigii Maraykanku ama gaaladu waxba way ka faa'iidi waayeen oo dhibaato waxaan ahayn uma soo kordhin account-ka ay dahabshiil furatay oo lacagta marka lagu rido next day way kala bixi jireen. bangiguna wuxuu u baahan yahay marka lacagta dhigatid inuu lacagta ku hayo sida uu ku sameeyo lacagaha bangigu. waxaa ka mid ah lacagta markaad dhigatid buu ku haynayaa muddo account-ka kuugu jirahayaa markaas waxa ku gadanayaan ganacsi bay ku galahayaan lacagtaadii deynta ahayd oo adigu aad u dhiibatay bay ganacsi ku galahayaan waxyaalo badan ay ku soo helahayaan. marka bangigu saas oo lacagta ku sameeyaa waxa weeyaan qof aad lacagtii tiri lacagtaan yahay oo lacagtii ku shaqaystay weeye. waxay kale oo taa u sahlaysa waxa weeyaan 100 qof haddii ay bangiga lacag u dhiibato 100ka qof isku mar u imaan mahayaan isku maalin ma soo doonanayaan. maxaa la dhahaa wuxuu ku xisaabtamayaa nin lacagtiisa markaa siisin nin kale lacagtiisa haysa always markaste lacag baad haysataa. marka bangiyada saasaa faa'iido ugu jirta inay lacagta ku hayaan oo ay ganacsi ku galaan oo hadhow adigana ay lacagtaada ku siiyaan. waxa weeyaan guraad ku gadatay 100 maxaa la dhahaa 80,000 oo adiga aad leedahay idii dhiibatay baan guri ku gatay 80,000 waxaan guraan ku gaday gurigii 100,000 baan ka bixiyay 20 ay faa'iiday lacagtaadan yaan ka beec mushtarahayaa. marka waxaa la yidhi lacagtii waxa weeyaan way ka faa'iidi waayeen waxaan wareer ahayn umaysan soo kordhin. marka account-ka waa ka xireen. dadka qaar saasay dhaheen qaarna waxay dhaheen sida runtaana waxa weeyaan haddii aad tahay qof kale oo aan caddaan ahayn oo aad ganacsi iyo wax samaysid gaaladu waxay isku dayahayaan in aad markasta faqri tahay. waxay la dagaalahayaan horumarkaagay la dagaalahayaan. kambani weyn intaad noqon lahayd waxa weeyaan way ku hor istaagahayaan. maxaa la dhahaa waxay ku dhigahayaan si aadan u weynaan oo aadan maaragtay u korin. waxa weeyaan meelo badan bay kaa xanibahayaan. marka waxaa isku mid ah xawaaladaha Soomaalida iyo Western Unionka. marka Western Unionka wax ayay gaaladaa leh waxa weeyaan wax kasta u fududeeyaan qofka gaalka markii ama cadaanka ah markii uu fikir la yimaado way u fududeeyaan oo maaragtay wuxuu asagu samaysan karo na way u ogolaadaan waxyaalo dheeraadana way u ogolaadaan oo maaragtay way kabaan. haddii aad tahay nin muslina ama Soomaali aad tahayna waxa weeyaan dadaalkii aad dadaalaysay waa lagu lugoynayaa hoos waa lagu maaragtay waa lagu maxaa la dhahaa waa hoos baa lagu dhigayaa oo waa maaragtay waa laga soo horjeensanayaa oo faylaha lagu jarayaa. marka waxaan ku keenay sheekadan oo dhan ninka Soomaaliga ah oo xawilaada leh lacagta laga dhacay lacagtana waxa ku kalifay in laga dhaco qaabkii sahlanayd oo maaragtay fiicnayd oo badbaadadu ku jidhay baa loo diiday. marka waxa ku kaliftay inuu ninku lacagta aruuriyo oo meel ku rido meeshaas markuu ku rido maxaa la dhahaa in uu qaado lacagtii oo fara badan oo cash ah oo $500,000 ah inuu qaado. marka jidka loo galay waa la dhacay saasaa lagu dhacay waxaana kalifay lugooyo iyo maaragtay iyo maxaa la dhahaa in la xanibo inuu ninkaas businesskiisa inuusan korin ama kobcin yaa maaragtay yaa loogu diiday oo maaragtay maxaa la dhahaa kaliftay xaasidnimo la xasdahayo baa kaliftay in ninkaas uu lacagtii si sahlan uu u marsan waayo meesha ama bangiyada uu u marsan waayo oo markaas maxaa la dhahaa ninka haddii loo diido inuu bangiyadii maaragtay laga xirxiro oo maaragtay meelihii sahlanaayo dhan in loo diido hadday dhacdo oo uu ku kalifto inuu lacagtii juwaan ku qaado oo juwaanku ku qaadi lahaana maxaa la dhahaa la dhaco oo dhowr goor la dhaco danta waxay ku kalifaysaa marka inuu ninku dhaho no ma samayn karo uu ka tanaasulo
ama uu iska daayo maadaama dhib waxaan ahayn uusan uga soo kordhaynin. marka sheekada waxaan ku keenay wacal Maraykana oo caddaan ah baa u diiday ninkaas meherka ku dhashay oo xalaasha ah yuu maaragtay wacal buu hoos joogaa, wacal cad buu hoos joogaa waan meher ku dhalan. marka labadii yaa la hoos fadhiyaa maanta, kii meherka ku dhashay iyo kii aan meherka ku dhalan. marka waa wacal la xanaaneeyey iyo maxaa la dhahaa ninkaas anigu wacal ma oranhayo, laakiin dee dadka ku xiran oo la dhibaateynayo waa dad dayacan weeye oo aan aabba lahayn oo maaragtay aan ehel lahayn, oo ehel waa leeyihiin laakiin ehel waxtar le male. oo maaragtay dadku waxay ka kooban yihiin, bulshadu waxay ka kooban tahay waa shakhsiyaad. marka haddii shakhsi ay ka halowdo oo mid kale ka halowdo oo mid kale ka halowdo oo mid kale ka halowdo, noloshu ka halowdo, waxa weeyaan dadki waxay wada noqonayaan wacallo aan lahayn wax daryeela bay ummadii noqotay. marka bulshadii ha badnaato laakiin waxtar male waa wacallo la wada dayacay weeye, waa wacallo wada